Ado Somali Mohamed waan salaamay dhamaantiin maantana waxaan doonayaa inaad ila wadaagtaan AutoCAD sida loogu sawiro baanad as a 3-dimensional halkan waxaan ku hayaa sawirka aan sawiri doono isagoo 1-dimensional oo dimensionskiisa xiiso ku qoran yihiin waa baanad 22 dhinacanka ah dhinacana 24 ka ah dhererkeedu waxa weeyaan laga bilaabo centerka goobada bartankeeda ilaa goobada bartankeeda waa 100 goobada weyn balaceeda waxa weeyaan dhererkeeda ka yaraal noqda gacankeedu waxa weeyaan 16 تيرنا قاعد كده 16 كان قاعد كده 9 قاعد كويننا هو 15 سبوا 3-dimensional نوع كان باندا سين سورنا اوكي marka aan bilowno marka ugu horeysa waxaan sawirnaa line ka dhexda line 100 boqol ayuu ahaa si time-ku ugu yaraado waxaan u sawirayaa si degdega 5.5 si aan ka kor u qaado offset 5.5 haddana 5.5 inta markaan sawiro waxaan sawirayaa goobooyinka dacalada goobooyinkaas inta waxaan sawira line-kaas iyo line-kaas oo ka dhexda aan original u qaatay goobo waxay ahayd 16 goobo kale taasina waxay ahayd 16 goobo kale taasi waxay ahayd 15 goobo kale taasi waxay ahayd 9 halka markaas sawirto waxaan sawirayaa hal line 17 weeye inta kale wax macnaheedu ma laha iska dheerinaya oo iska jiiday inta doona waan ka dhigaya inta markaan ka dhigo haddana line kale oo isaga la mid ah markaasna 13 inta markaan sawiro waxaan wareejinayaa kuwa aan sawiray wareej ayaan leeyahay degree inta markaan sawiro waxaan leeyahay waxaan dhaqaajinayaa kuwa aan wareejiyay waan qaaday halkaasaan saaray kalena waan qaaday kalena waan qaaday halkaasaan saaray okay halka markaan sameeyo waxaan qaadayaa goobadan haddana mar kale kor ayaan u qaadayaa 2 mar kale 6 mar kale kor ayaan u qaadayaa halkaas waan ka xumahay kor inaan u qaado ma ahayn 2 ayaan kor u qaaday inaan hoos u qaado ay ahayd soo 2dii aan kor u qaaday iyo 2 hoos aan u qaaday 4 ayaan hoos celinayaa hadda markaan halkaan marayo waxaan leeyahay extend ayaan qorayaa extend markaan qoro waxaan dooranayaa ilaa iyo halka aan extend ku sameynayo labadaba dooro line-kaasaan extend ku sameynayaa ilaa iyo meesha aad extend ku sameynaysaa marka ugu hoose dooranaysaa halka markaas sameyso waxaan sawirayaa marka
goobadaas ayaan sawiraya goobada halka ka bilaabanta iyo goobadaas iyo goobadaas iyo goobadaas saddexda goobo si aan u sawiro waxaan sameynayaa goobo tetere waxaan sawiro tangent halkaas taana ku dhuftay 1 3 mar labaad tetere mar labaad tetere 47 weeye markaan haddana markuu celi mar kale kana waa 47 oo enter intaa markaan sameeyo waxaan sameynayaa trim si aan laymanka aanan u baahnayn aan isaga baabi'iyo trim oo kan ma baahni kana ma baahni kana ma baahni kana iga kaxee kana takudhe kana iska tago kana tago kana tago waxaan u baahnayn oo kaxaynayaa saan meesha u nadiifiyo waxaan odhan ma baahni atagaan waxba halkaas kana ma baahni kaasna ma baahni kaasna ma baahni kana 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 ma baahni halkaan markay marayso trimka iga dhamaaday markaa waxaan dooranayaa direct waan dooranayaa kuwaan u baahnay delete ana delete trim ka dooro kana dooro gelinteedii way ugu badatee halkaan markaan mareeyo ma baahni hadda markaan marino hadda ayuu soo ekaatay intaa markaan sawirno waxaan leeyahay joint select garee waxaba select baan nidhi halkaan markaan leeyahay copy markaan dhahdo kor baan u qaadayaa kor baan u qaaday 35 intaa markaan kor u qaado waxaan leeyahay waxaan delete garaynayaa inta halkan ku taalla delete haddana trim baan leeyahay trim markaan dhahdo intaan masaxayaa intana waan masaxayaa iga eri ana
baxde mar labaad ayaan waxaan leeyahay joint enter haddana waxaan leeyahay markaas move labadaasaan doortay hoos u soo deji 35 dib ugu celi waan isdul saaray halkaan markaan marayo waxaan leeyahay hadda waxaan ka dhigaya markaa 3 dimensional marka 1 dimensional 2 dimensional 3 dimensional baan ka dhigaya saa darteed waxaan leeyahay SE baan doortay halkana waan ka dooran karaa SE isometric intaa markaan doorto waxaan leeyahay extrude baan leeyahay waan doortay kaana waan doortay kor baan u qaadayaa 6 markaan doorto kanana waxaan leeyahay extrude kaana waxaa weeye 5 intaa markaan sameeyo waxaan leeyahay 2D wireframe realistic ayaan dooranayaa intaa markaan sameeyo waxaan leeyahay move taa dhexda ayaan doortay kor u qaad 0.5 intaa markaan sameeyo waxaa ii hadhay keliya uu dhammaaday sawiritaankaygii keliya waxaa ii hadhay hagaajinta si aan u sameeyo waxaan leeyahay yani dacaladaasaan doonaya inaan ka dhigo sidii goobo oo kale qurux badan si aan u noqoto waxaan leeyahay fillet waxaan leeyahay radius 0.5 dacalka dooro enter dacalada wada doolo markaa interde markaas way dhamaatay dhinaca labada dhinac baan doonaya haddaba inaan sameeyo saa darteed saan u arko si fiican ugu arko 2D wireframe fillet 0.5 enter hoosena dooro enter haddana fillet kaa dooro enter hoosena dooro enter waxaan isku celi haddaba realistic sawirkan uu dhan yahay keliya hadda markaan taa taabto dhinac gooni waxaan yeesaa waan isugu xirayaa union ayaan leeyahay select objects hadda waa one object sawirkeena halkaas ku eg yahay aad iyo aad baad mahadsantihiin isku day waad sawiri kartaa waxyaabo ka fiican ayaad sawiri kartaa waxaan isku ognahay guul bye bye asalaamu calaykum